horta Soomaalidu waa mucaarad meel kasta ay joogaan dawladii hore waa la mucaaraday tan dhalatay waa la mucaaradaya mid kale shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maalintii la doortay farmaajo madaxweynaha cusub sootiin u wada saacabatunay sootii loo wada hambaliyay sootii gabi ahaanba ay shacabku israacsanayeen hadda maxaa keenay inaan dawladii oo aan dhalan madaxweynaha aan wali waxba qaban wasiiradii la dooran waxba la dooran in mucaarad laga keeno waxa jira dad aad u fara badan oo ololeynayay laakiin hadda ka soo horjeestay mid kale qofka hadii uu daliishi shalay isaga qofka taageerayay maantana haduu daliilo uu arkay uu soo bandhigo ama sheego ma ka muugubin macnuhu waa inuu qofku waa in la saxaa oo madaxweynuhu ka afeejinada waxyaabo fara badan marka waxaan leeyahay Soomaalida inuu mucaarad been iska neey laakiin bal inta at least madaxweynuhu wasiirada magacaabayo ee dawladda caga dhiganaysa in madaxweynuhu degayo bal loo yiri kaadiyo qofku haduu 2 iyo 3 macaa uu sheego oo dhaliiloodu ilaa ka digtoonaadana in la carro oo Facebook-da lagu caayo oo leeyahay hebel baa waxa sheegay hebel baa taasna ma wanaagsana marka qofku anu waxa aaminsanahay haduu dhaliisha sheego shalay haduu aaminsanayo uu xaafidsanaayo uu rabay maantana uu khalad sameeyo uu sheego wax weyn ma kana muugubna diinana muugub laakiin waxa leeyahay inta dawladdu bal ay caga dhiganayso oo wasiirada la magacaabayo bal in xoogaa sugno saasana anigu isleeyahay